أما بعد الله عز وجل ينو مهديننا مهدا مانتيد عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الله رحمة إنوشبي من نمدا إنسيي وناقا إيا قروحدا إنو الله ديستي الله عز وجل ينو مهديننا إله حمان إيا كالتاق يتفرارقا لو قدام بيسين من نمدا إيا موافقة النوسيادي بريجي هوري qolada iyadan reer hawde anigu aan u sokeeyay Garaasalaam Buraale boqorka iyo Suldaan Saciidiyo aan nugaal u soo daadegin dhulbahantaha nugaaleed baad istaqaanaane waxaan u jiray warimanka ganacsiga leh ee warsangaliye halkaas maxay yihiin Umar iyo Dubays niman la yiraahdo weeyaan oran jiray sanadka waxaa nooga magac dheer gaashaanbuur baa nooga magac waxaan ka baqayaa qofku markuu yiraahdo warsangali baan ahay ma gaashaanbuur baa tahay in la yiraahdo marka insha Allah ta'ala waa haynaa arintan waxaan u malaynaynaa de wayba tahay waad ogtihiin waynu wada leenahay xajadan xajaan idin kaleenahay maxaa yeelay doon baa wada saaran yahay labadan reer warsangali iyo dhulbahanta doon bay wada saaran yihiin hartiga kale way loo soo gurmadeen laakiin isaaq dhulkooda ma sheeganayo raga dhulkooda la sheeganayo ee leeyahay isaga taga ama isaaq noqda waa inaga maxay uga dhici weyday dhulkeena weeye cid la sheeganaya harti kale oo dhulkiisa la sheeganayo tolibay inoogu soo gurmadeen oo inoogula dhiman lahaayeen xeerkaynu isku lahayn weeye iyo wada dhalashadii xaajaduse haddii laascaanood lagu guulaystana baran lagu guulaysay haddii laascaanood lagu guuldaraystana baran lagu guuldaraysay way isa saaran yihiin way is cunayaan way is qabaan waxa weeye waa guusha ama waynu wada guusha guuldaradaba hartiga kale culays uun baynu ku noqonaynaayo deelima dhulkoodii laga soo qaaday waynu soo qaxaynaa uun baynu noqonaysaa ilaahay kama dhigin marka arintan dhinac walba siyaasiyan iyo askariyan ba insha Allah ta'ala waa arin ina wada saameynaysa taladeeda iyo tamarteeda iyo ilaahay dukuuroon dagaalkeeda iyo duulaankeedaba waa xaja aynu wada leenahay waa sidaad ugu dhiifoontihiin aad ugu soo horeyseen dadka kale aad uga soo hormarteen insha Allah ta'ala meel wacna waa maraynaa waxani waa nasri ilaahay inoo soo dejiyay dhowr bilood ka hor maynaan filay kumaynaan tashan quus baynu ku dhaweyn alxamdulillaah rabbil caalamiin ilaah baa inoo hiiliyay Allah azza wa jalla hiilkiisuna waa dhamaystirmaayo ilaahay haduu ku roon yahay daalim kale markuu qabto qabashada aan qabasho ka dambeyn buu qabtaa in badan bay dulmi sameeyeen dadka dariskeena ah maanta waxaad moodaa in la qabtay ilaahay haduu ku roon yahay inagu dulmi geysan mayno ka daba tagi mayno dhiigooda dooni mayno dalkooda dooni mayno dantooda inaynu ka burburino ma doonayno hase yeeshee riyada ah iyo kariiriga yar ee ay dhaqdeen ee ah dalkan iyo dadkan idinka iskalo Ingiriis baa idin siiyay mid aynu ka dulqaadanayno maaha mid aynu daris ku ahaanayna maaha mid aynu ku wada deganaanayna maaha waxaynu ku wada deganaan karnaa waxa weeye dad Soomaaliyeed oo isgarab yaala oo nin walbaaba dhulkiisa iyo taladiisa leeyahay taasa ina wada dhaqda waxaan u sheegaynaa taas weeye lama huraan waa caws jiilaal intii inagoo isku dhimanay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud Xali waad maqlayseen xabaalaha dushooda intii la isku gacan qaadi lahaa iyadoo oo raggu nool yahay hal la iska gacan qaado walaalayaalow intaan wiilasheenu inagu isku dhiman dhiigeenu isku bixin intaynaan inta ka badan ayan dhiman intii dhimatay dhowr boqol oo wiil baa isaga keen dhintay iyo gabdhaba guriyihiina ku noqda guriyihiina idin tilmaami mayno waad garanaysaan walaalayaal guriyihiina ku noqda oo nooga baxa dhulka yaga fariintaan u dirayno wata tolweynaha kalena waxaanu leenahay xaajadu sida la moodayo waa ka qoto dheer tahay yaan la sahlan
wixii la sahladaa waa kugu sabiq bay kugu galaan insha Allah ta'ala fariinta aan tolweynaha kala u direynana wata aad iyo aad baan u mahadinaynaa kulankan iyo qadadan iyo isu imaanshahan جزاؤكم الله خير جزاء أفضل عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة اللهم صل على سيدنا محمد صلوات الله وسلام عليه فاتح